waxay ka sheekeynayaan akhlaaq xumo dhaqan xumo diin la'aan edab darro meeshii u dambaysay ilaahu gabadhan iyo ninkeeda adduunka waxa cudur yaalo ilaahu ku rid ilaahu kansar iyo balaayo iyo sheekh caanka geyiga Soomaalida iyo sidoo kale dadka adduunka ku dhaqan oo dhan aad u yaqaaniin ayaa waxa uu habaaray habaar aan loo meel dayin isla markaana habaarkii ugu dambeeyay ku habaaray qoyskii muddooyinkii dambe dhaqan xumada ku jooga social media qaasatan barta TikTok kuwaasi oo ka sheekeyn jireen galmada iyo sidoo kale waxyaabaha la mid ah isla markaana mararka qaar caruurtooda ku soo bandhigi jireen muuqaalo live fasiya caruurtana waxaan ku wanaagsaneen ee maskaxda kaga koriyaan sheekhan waxa uu ka mid yahay culimada Soomaaliyeed kuwooda aadka loo yaqaan ee adigay daawanaya aad u taqaan mar qura ayuu ka soo muuqday barta social media isla markaana aad ayuu u caayay wuxuu habaar aan loo meel dayin oo ku habaaray qoyskii muddooyinkii dambe ku noolaa dalka Canada halkaasi ayuu si live muuqaal iska soo duubay wuxuu ku habaaray Allahna uga bariyay in musiibo midii ugu dambeysay ku dhacdo dad badan oo Soomaaliyeed ayaa sheekhan aad uga naxeen kuwaasi oo inta badan aragtiyo kala duwan xambaarsanaa qaarkood ayaa dhaheen waa laga wanaagsanaa in qoyskan la sii habaaro maadaama ay hadda ayagu fidna ay ku jiraan waxa wanaagsaneed ayay dhaheen in loo duceeyo si Allah uga soo saaro waayo aadamaha gifka waa ka dhacaa laakiin haddii habaar looga sii daro waxay noqonaysaa ayay dhaheen in meesha ay joogaan meel ka daran ay sii gaaraan halka kuwa kale ay qabaan in sheekhu saxan yahay isla markaana habaarka ay dadkani mudaysteen isla markaana aan dadkani wax ducaysan lahayn inkastoo qof kastoo bini'aadana gif walba midka ugu sareeyaba ha gale oo toobada furanta isla markaana oo soo laaban karo haddana sheekhan ayaa maanta saacadihii ugu dambeeyay 24 saac waxa uu haystaa barta YouTube-ka halkaasi oo falaqeyntiisii ugu dambeysay iyo muuqaalada la isla dhaxmarayay sheekhan ayaa waxa uu yiri qoyskan waa kuwa fidnaa Allah ayaan uga baryayaa yiri inuu dhulka la gooyo maadaama dalkay ku sugan yihiin Canada ay ku sugan yihiin kuwa badan oo islaam ah oo Soomaali ah iyo sidoo kale dad kale oo gaala ah oo aanan haysan diinteena islaamka laakiin habaarka ayuu wuxuu u jamleeyay qoyskan oo hadda ku dhiban dalka Canada isla markaana caruurtooda qaar badan ay ka haysatay dawladda Canada tan ayaa noqonayso maanta 24 saac ugu dambeeyay barta internetka waxyaabihii ugu saameynta badnaa ee sheekhan iyo sidoo kale qoyskii dhaqan xumada badnaa ee ku noolaa dalka Canada ee la isla dhaxmarayo in sheekhan habaar dhameynteed oo dhameystiran oo ku riday iyadoo dadka Soomaaliyeed aragtidan ay ku kala duunaayeen kuwana ay sheekha ku dhaleeceynayeen inuu sida u habaaro meehen halka kuwa kalena ay ku taageereen inuu sheekha saxan yahay fadlan daawada muuqaalkan like saar oo subscribe saar kana mid noqo saaxiibada halkan ku xiran aan xogaha iyo sidoo kale xaqiiqooyinkan kula wadaagno bartan